وعن داوديال halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warar warbixino iyo falanqeynno barnaamijka ku sameeyno kuna faaqino waxyaabaha daba doontaan waxa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waxay 6 bilood ku qaadatay in uu bedelo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir haddaba maxay tahay sababta gudoomiye ku-xigeenada gobolka muddada inta leeg ay ku qaadatay xasan oo ah madaxweynaha Soomaaliya waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdooyinka ku gadamay barnaamijka ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono waxyaabaha kala daba doontaan waxa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal hakad ayaa ku yimid dhaqdhaqaaqa ka socda gobolka Hiiraan ama kacdanadii dalka loogu xoreynayo al-shabaab qaybo badan oo gobolada dalka ah haddaba hakadkaasi ku yimid maxaa isbedelay maxaa sababay waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin aan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono sidoo kale waxyaabaha daba doontaan waxa ka mid ah maxaa keenay in golaha amniga qaramada midoobay si kordhiyo xayiraadda hubka uu saaray Soomaaliya barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa kuna falanqeyn doonaa soo dhawaada halkan waa xanta wararka la garay geebtoosan aragtidaada waxay kula tahay ku dhaaftaa wade markale kulan wacan ayaan hawdii ka leenahay hadaynu ku bilowno maxay xasan sheekh maxamuud ay 6 bilood ugu qaadatay inuu bedelo gudoomiye ku-xigeenada gobolka ayaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu soo magacaabo gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir iyadoo 6 bilood ay ku qaadatay dhaqdhaqaaqaasi xogta la helayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaysa in magacaabida gudoomiye ku-xigeenada gobolka oo in muddo diyaar ahayd ay ka harsan tahay in lagu dhawaaqo oo la shaaciyo taasoo ku xiran xilliga uu doorto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiin badan ayaa olol ugu jira inay helaan 4 xil ee ku-xigeenka gobolka Banaadir waxaana xilli kasta uu markaasi yahay qoonda beeleed oo ay qasab tahay in beelihii hore u hayay xilkaasi qof la mid ah markaasi loo magacaabo waxa si xoogeysanaya oo xafiiskaasi ka soo baxaya loola loogu jiro xilalkan iyadoo ay markaasi rajo soo gashay mas'uuliyiinta xilalkan hore ugu fadhiyay oo markii hore aan shaqada xaadiri jirin balse bila kadib markii ay arkeen xaaladda ay dadaal u galeen inay xilalkooda sii haystaan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa 7 September 2022 gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo loo garan og yahay Madaale balse ku dhawaad 2 bilood iyo bad wali waxa laga sugayaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kor u haya xilal fara badan oo iskugu jira taliyaasha ciidamada oo la filayay in la bedelo agaasimayaal safiiro iyo xilal kale taasoo keentay inay yaraato mucaaradnimada loo hayo iyadoona xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ay markaasi rajo ka qabaan in xubnaha ay wataan xilalkaasi wax ka helaan gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir ayaa warar ku sheegayaan in ugu dambeyn maalmaha soo socda 6 bilood kadib ay ka soo bixi doonaan xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud waasi oo lagu wado in maalmaha soo aadan fagaarayaasha la keeno la magacaabo inkastoo isqabqabsi uu ka dhex jira Mahad Maxamed Salaad taliyaha nabad sugidda Soomaaliya iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame oo ah ergeyga xasan sheekh maxamuud ee arrimaha gargaarka iyo bini'aadanimada iyo abaaraha kaasi oo isagu markaasi isku hayaan kala bedelka arintan xilli Abshir Bugaari ima Salaad isku goondayiin maadna uu riixayo oo biritaarayo shakhsi uu wata Abshir Bugaari booska caliyara cali la siiyo halka Cabdiraxmaan Cabshukuur uu siiyana oo doonayo in jufudiisa hoose la siiyo kursigan taasi waxa sheekh maxamuud markaasi ka dhigtay ayaa la yiri in muddo kale uu ka dhigo maxaa keenay in golaha amniga qaramada midoobay si kordhiso xayiraadda hubka ee Soomaaliya saaran golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale kordhiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya taasoo si weyn uga doonaysay dawladda Soomaaliya in laga qaado xayiraadda hubka ee Soomaaliya oo socotay tan iyo sanadkii 1992 ayaa sabab looga dhigay in la sii wado halista al-shabaab oo ah koox argagixisa oo ka howlgasha Soomaaliya sida lagu sheegay bayaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay dawladda Soomaaliya ayaa dadaal weyn ugu jirta in cunaqabateynta hubka laga qaado si al-shabaab ula dagaalanto ciidamadeeduna u helaan hub xoog leh laakiin mar kale ayaa taasi socon weyday 12 ka mid ah 15 dal ee golaha amniga ayaa u codeeyay in cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay sii socoto waxaase kulanka ka aamusay dalalka Ruushka, Shiinaha, Gabon iyo Ghana safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Cusmaan Balle ayaa sheegay inuu ka xun yahay kordhinta xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya waxaanu ku amaanay 4 dal ee ka aamusay
inaysan taageersaneen kordhinta cunaqabateynta hubka. safiirka ayaa ka digay in cunaqabateynta hubka oo ah tii ugu dheeraad ee qaramada midoobay ee caqabad ku noqonayso dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga hortago al-shabaab. cunaqabateyntan gacmaha ayaa naga xiraysaa xilligii ugu adkaa ee aan dagaalka kula jirno cadowga arxanlaawayaasha, ayuu yiri Abuukar Cusmaan Baalle. Danjir Abuukar Baalle ayaa waxa uu sheegayaa in dhibanayaasha argagixisada ah ee Soomaaliya ay markaasi la yaaban yihiin sababta gaadista cunaqabateynta hubka Soomaaliya ay qatar ugu tahay nabadda iyo ammaanka caalamka, iyadoo dalal kale loo habeeyo ama loo hubeeyo si ay u difaacdaan dhulkooda iyo dadkooda. cadaalad darada iyo laba wajiilnimadan waxay ka hor istaagaysaa dowladda Soomaaliya inay si sharci ah u hesho golab military si ay dib markaasi ugu dhisto ciidamadeeda qaranka, ayuu yiri danjiraha golaha ammaanka danjire Abuukar Cusmaan Baalle oo isagu markaasi ka hadlayay arrinta ku gadaaman in Soomaaliya aan fursad loo siinin inay markaasi hesho arrin ku gadaaman iyo xayraadii aan laga qaadin. hakad ayaa ku yimid kacdoonkii looga xoreynayay al-shabaab qeybo ka mid ah gobolada dalka. haddaba maxaa isbedelay daawade? warar aanu helayno ayaa sheegaya in gebi ahaanba uu istaagay duulaankii lagu qaaday ururka al-shabaab ee ka socday gobolada dhexe ee Soomaaliya, marka laga reebo dhowr tuulo oo aad u yaryar oo ciidamada ay qabsadeen dagaal la'aan maalmihii dhawaa. waxaana istaagay dagaaladii xoogganaa ee al-shabaab looga xorin lahaa dalka, iyadoo aan la garanaynin sababta. ciidamada dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale dib uga baxay deegaano kala duwan oo looga qabsaday kooxda al-shabaab oo ugu dambeeyay deegaanka muhiimka ah Wabxo oo dhowr maalmood ka hor ciidamadu ay faaruujeen. saraakiisha Geerkood ayaa markaasi laga soo xigtay in taliyaha ciidamada xoogga dalka uu bixiyay amarka dib looga la baxay deegaanadii laga saaray kooxdaas al-shabaab, inkastoo aan si rasmi ah loo cadeyn karinin taasi. si kasta oo xaaladda noqoto, falanqayaal amni oo markaasi la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arrintan ay uga wacan tahay xeelad la'aanta dhanka dowladda iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqda mid aan muhiimad weyn siinaynin dagaalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayd inuu dagaalka hogaamiyo isla markaana dhiirigeliyo shacabka iyo ciidanka dowladda ayaa waqtigiisa ugu badan ku bixinaya safarada dibadeed oo badankood aan wax macno iyo dan ugu jirin Soomaaliya, inkastoo safarada gaar loo qiilday karo sida kii ugu dambeeyay Eritrea. haddana Xasan Sheekh wuxuu galayaa kuwa kale oo macno darro ah sida shirkii cimilada oo magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar oo wasiirada dowladdu ay ku filnaayeen siday leeyihiin dadka arrimaha markaasi siyaasadda sida weyn ugu dhunduleela. madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hore u sheegay in xoogag ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dibadda ka jooga ay iska kaashanayaan fashilinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab, kuwaasi oo iyagu markaasi ka bilowday aqoon badan oo kamid ah gobolada Soomaaliya sida Galgaduud, Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe. qeybo ka tirsan goboladaasi Bay Bakool, inkastoo dhaqdhaqaaqyada Hiiraan Shabeellada Dhexe ee ahaayeen kuwa markaasi aad u culus oo iyagu markaasi dhaqdhaqaaqoodu uu muuqday sidoo kalena la arki karayay goobaha markaasi dhaqdhaqaaqyadaasi laga sameeyay. si kastaba xaaladda noqoto, waxaa la sheegayaa in dhawaan markaasi dowladdu ay dib u bilaabi doonto dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ururkaasi al-shabaab ayna ku dib uga curto mar kale Soomaaliya, iyada oo ay riixayaan dhaqdhaqaaqyo dhowr ah xubnahaasi, maadaama uu markaasi jiro doodo ka soo laabtay goobihii la qabtay ee dib looga baxay iyo dhaqdhaqaaq la'aanta ka socota deegaano badan oo gobolada dalka ah, taasi oo dad badan markaasi shaki ay ka muujiyeen ama markaasi ay la yaabeen waxyaabaha markaasi sababay in muddada intaan la eg aan wax dhaqdhaqaaq la sameynin. Cali Jeet waxa uu ku sugan yahay Muqdisho, wili Xasan Sheekh ma qaabilin, iyadoo ay markaasi qaabileen gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare. si kastaba xaaladda noqoto, waxaa la sheegayaa in wadahadalo dhowr ah ay yeelanayaan gudoomiyaha Hiiraan Cali Jeet iyo Xasan Sheekh Maxamuud si abaabulkaasi loo sii dhaqaajiyo iyo qorshayaal kale oo siyaasadeed.